dhagaha shacabka Soomaaliyeed wax ku cusub maahan in dawladaha Soomaaliya iyo Kenya uu ka dhaxeeyo muranbadeed kaasoo socday ku dhawaad 10 sano. Kenya oo horay u boobtay dhul Soomaaliyeed ayaa mar kale damac uu ka galay biyaha Soomaaliya, taas ayaana noqotay mid loo midoobo. balse saacadii ugu dambeeyay ayaa la hadalhayay in dawladda Soomaaliya ka laabatay dacwadda badda, taas ayaana looga hadlay siyaabooyin kala duwan. intaasi kadib dawladda Soomaaliya waxay beenisay inay ka laabatay mowqifkeeda ku aadan muranka badda ee kala dhaxeeya dalka Kenya, iyadoo dhinaca kale ay sheegtay in la baari doono cidii warkaasi baahisay. Cabdinuur Maxamed Axmed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya oo war qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Soomaaliya ka noqon mowqifkeeda la xiriira kiiska horyaala maxkamadda ICJ. waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay soo celinta badda, isla markaana ay sugayaan waqtiga dib loo dhageysanayo kiiska badda. dhinaca kale Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa xuseen xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ay baarayaan cidii ka dambeeyay baahinta warka been abuurka ah. ma laga hordhici karo natiijada ka soo bixi karta dacwadda labada wadan, balse waxaa muuqata in Kenya cabsi xoogan ka qabto go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka.